qadayada khasab waaye in la hirgeliya maxaa yeelay maxkamaddii cadaaladda adduunyada ayaanu nahay sidaa awgeedna ayay muhiim u tahay in dowladuhu ay horay u aqbalaan awoodda ay maxkamaddu leedahay iyo in maxkamaddu ay geli kadho muranada ama khilaafaadka dowladaha dhex yimaada marka dowladahana hor yimaada inta badan waxa waaye dowlado aqbalay awoodda maxkamadda soo goostayna inay maxkamadda hor yimaadaan oo taas horay usoo aqbalay go-aanka maxkamadda ka soo baxana waa ay fuliyaan oo dhaqsay u fuliyaan marka go-aanada maxkamadda iyadu ma dhacdo inaan fulitaan la gelin sidee markaa u hubisaan in go-aankii maxkamaddu ay riday dowladihii ay khusaynaysay ay fuliyeen haddee waa la soconnaa ma ogtahay hadda waxaa inta badan dhacda in maxkamaddu ay goyso dhul laba dowladood isku hayeen in labada dowladood midood loo xukumo waxaa jiray dhul weyn aada iyo aada weyn oo batrool ku jiro oo ay isku hayeen cameroon iyo nigeria oo kale in bakasi peninsula la yiraahdaa marka bakasi peninsula waxaa loo xukumay cameroon dhul weyn buu ahaa dad badan baa deganaa nigeria xoogaa waa ay dhibsatay in peninsuladii oo dhan dhulkii oo dhan loo xukumay nigeria secretary generaalkii hore oo qaramada midoobay Kofi Annan ayaa labadii madaxweyne isu keenay guddi buu u saaray hirgelinta go-aankii maxkamadda oo ku caawinaya labada dhinac in la hirgeliyo go-aankii maxkamadda guddigaasu intii 2 sano 3 sano ayuu shaqadiisa watay waxayna ku dhamaystireen in muxuu ahaayo sidii loo hirgelin lahaa go-aanadii maxkamadda ka soo baxay waana la hirgeliyey dhulkiina waxaa loo wareejiyey cameroon baa loo wareejiyey dhowaan 2 wadan oo afrikaana benin iyo niger ayaana hor yimi dhul bay intii waqtiga isku hayeen iyaguna dhulkii waanu u samaynay soodin cusub oo aan ahayn ka duwan tii hore ayaanu u samaynay waxaan ognahay inay labadooduba ay ku isticmaaleen oo soodintaas hadda ay u dhaxayso ayna aqoonsadeen bil ka hor hadda waxaa khilaafaad dhex yiil oo ay askar ay iska hortimi dowladaha Costa Rica iyo Nicaragua dhul yaroo ay isku hayeen ayaanu go-aan ka soo saarnay waxaanuna ognahay waxaanuna u xukunnay dowladda Costa Rica inay dhulkaa leedahay oo dowladda Nicaragua ayaan waxba ku lahayn dhulkii la isku hayo dhan waxaa loo xukumay dowladda Costa Rica dowladda Nicaragua waxay tiri waa fulinaynaa go-aanka maxkamadda marka maxkamadda go-aanadeedu inta badan saasay dowladuhu u fuliyaan muranada markaa laba dowladood maxkamad hor yimaadaan dowladina ay tahay mid dadkeedu ay yihiin 100,000 dowladana ay tahay mid dadkeedu ay yihiin 1 milyan ama 1 bilyan maxkamadda horteeda labada dowladood waa isku mid marka saa daraadeed goorta dowlado xoog leh iyo dowlado daciifihi ay hor yimaadaan maxkamadda waxay u hor imanayaan sidii laba dowladood oo isu dhigma oo maxkamadduna waxay ula hadlaysaa dacwadoodana ay u qaadaysaa sidii laba dowladood oo equal oo isku mid ah ma garata hadda dhegeysiga ugu dambeeyay oo aanu dhegeysanaynay wuxuu ahaa dacwooyin ay keentay jamhuuriyadda jasiiradaha Marshall Islands oo ay ka keentay dowladaha haysta hubka nuclearka marka
goortii ingiriiska iyo ay hortaagnaayeen iyo jamhuuriyadda Marshall Islands oo shacbigeedu uu yahay 75,000 keliya labaduba waxay si cad uga hadleen sida maxkamadda horteeda ay u yihiin labo dowladood oo isku mida oo isu dhigma oo aan midna xoogeeda ama powerkeeda ayaan la hor imanayn maxkamadda maxkamadda ay ugu jeedaan authority iyaga ka sarraysa oo sharciga arrintaas la hor keenay ku qaadaysa markaa guddoomiye